kubadda cagta ciyaartooy dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku tartamayay magaca qaranimada dalka Soomaaliya ayaa sanadka 2015 waxay ka soo qayb galeen koobka dhalinyarada caalamka ee dalka Norway looga yaqaano Norway Cup. dhalinyaradan oo sida la sheegay laga soo xulay gudaha dalkeena Soomaaliya iyo qaybo kale oo caalamka ayaa waxa ay tartankan oo isreebreeb ahaa kula kulmeen ciyaartooy kale oo ka kala socday dalalka caalamka. ugu dambeyntii ayaa kooxdan dhalinyarada ee qaranka Soomaaliyeed magaciisa ku ciyaarayay ayaa soo gaaray afartii koox ee ugu dambeysay kadib markii ay xulka dalka Brazil ugu awood sheegteen 1-0. طبعا aad baan ugu faraxsanahay inaan aragno dhalinyaro Soomaaliyeed oo tartan kaga qayb galaya tartankan oo ah mid asaasi oo in badan soo jiro caan ku ah dalka Norway markii ugu horeysay koox Soomaali ah dhalinyaro ah daadana ay badiyaan oo heerkan ay soo gaaraan dabcan afartii ugu dambeysay joogtaan tartan ballaaran buu ahaa maanta waxaad ka badiseen kooxda Brazil oo lagu yaqaano caan inay ku yihiin kubadda cagta bal dabcan dareenkiina si guud adoo tababaray haddaad iga waranto markuu horeys ruuxantii dareenkina waa aad iyo aad baan u faraxsanahay جيم كاديلنا نوعها كيم مسك حساسية برازيل وكوح هذا لكن لفتو جنو كوح سهل منهن عيارتنا حقول ما تهلبر قوشنا نقعدنا مرة ضد برازيل كبد السن طبعا درين كي نواس إذا نتكو قولوا ستان كوب كان دادم روحانتي كوب كان هراك ما سوق يبقل ومركي جوهر ساك سوق يبقله ساسة أنا بالشدة وإحنا نشيك سان كوح سنة كهراء هذا كبد النين قاضي مركا وإحنا اللي ينبدأ كوان كبد السن بكوب كنا كاسكله dhalinyaradan Soomaaliyeed adigu tababaraad u tahay bal hadii aad faahfaahin naga siiso sida aad halkan ku soo gaarteen dalka Norway waa timaadeen martibad ku tihiin si tartanka aad uga qayb gashaan xageed ka timaadeen xageed ku nooshiin ma dalkii Soomaaliya ma qaybo kale oo caalamka ruuxantii dhalinyarada inta badan waxa ka keenay Soomaaliya ka keenay afar wiil oo kamid ah waxa ka keenay wadanka Sweden koox wadanka Sweden ka jirta leeyahay Superstar Somaliska Youth Football ayaa na soo sponsor gareeyay ayaga ka dambeeyay halkan imaano waxaanu ku soconaa magaca Soomaaliya inaan meesha caalan ka surno magaca Soomaalida ku dheelno dhalinyarta Soomaalidana talentiga leeyahay aan soo bandhigno kale waxa ka timaaday 12 kale waxa ka imaan Soomaaliya adigu waxa ka timaaday anigu waxa ka imaaday Soomaaliya